قرنتا القبا وحان قعشر مابا قرتاي نولوشيدا قلدا سوغيني وقتي وين صوغلاي قلدا سوغيني وقتي وين صوغلاي simayo kama gariyone guushiya barwaaqada guulaygu simayo kama gariyone ahaya wayaha isgurayo gortaan sugayna la soo gaadhay maante ahaya wayaha isgurayo gortaan sugayna la soo gaadhay maante Gashan digo idin garab galle Gashan digo idin garab galle Anso gaabsho hadalke gabayada xasuusta leh waxaan uga goleeyahay mama bay guntee tahay gala wadab ma lagu dayay Gashan digo Gashan digo idin garab galle Anso gaabsho hadalke gabayada xasuusta leh waxaan uga golle waxaa socda oo imika la hagaajinaya in dadka ku jira line-ka guddiga doorashooyinka ay ka baaraan inay wataan maxaa la yiraahdaa numberka calaamadda ama kaarkii hore u qaateen ee xaafadda afraad ah ama qabalaha afraad ay ka qaateen aba saaw qaba kaarkaaga saad u aragtid taas dhan ilaalinaya boorka uu leeyahay saaw ilaashanayeen jawaabta suugahayay marka cid walba diyaar bay u tahay cidii hadlaha ama hadal doonaysa iska hadasho laakiin shacabkii maanta way u soo baxeen inay doorashada galaan halkan waa mid ka mid ah labada goob doorasho ee laga qabanayo maxaa la yiraahdaa laga qabanayo wadada laamiga cusub ee Awaare labada goob doorasho mid ka mid ah weeye si fiican baan u socotay ilaa imika mayna bilaaman oo waqtiga la ilaalinaya laakiin diyaar garowga meel wanaagsan buu marayaa لا لا لا
حاجة نشوفنا وتكاب بحرة وأيضا سكة عن الصعطة حاجة ذلك السنة وجدي دروشين كوكشرة شغلوا دي وتا تكاب بحرة ويه وقبل قدم كاب بحرة وصفي على الله دورنا أيه حاجة نحكي شرحان مشرحات سميرة محمد أيه كشرحان هاي كالي نوغا وربيحي بالدرشة دا كاب بحر مانتا سيتاي أنا كاغو وربحينيا هاي لله waxa weeye roobkii oo la helay waxa weeye doorashadii dhulkaas arkaysa biyo fadhiya iyagoo biyuhu fadhiyaan biyo soo fadhiya dhulku haye waa roob le ku wari waa ilays waxa weeyaan nin waliba isaga isu soo taagay doorashada haye kasta nin la yiri soo bax ma jiro nin loo tagay ma jiro isaga nin waliba doorashada doonayay inuu ka qayb galo uu ka qayb qaato waana la doortay way dooran tahay tani waana aragtaan ما شاء الله اللي هنا معلنا سيدا dadku kulluga ugu jirana waa aragtaan هاي aad wad maasantahay هلعب صفوفك داير اللي جيرو رجينا صفوفكاس اللي جيرا haweenkii doorashadii way bilaameysaa cod bixintii waxa ka dhiman daqiiqadii saacadaha ka dhiman gaaladii looma kala harin la wada joogaa assalaamu calaykum iska warama dadka iyo waxaan labada law meel isugu geeyay sidii argantaal qaba waxaan ku cashareemaba dadka iyo waxaan labada law meel isugu geeyay sidii argantaal qaba waxaan ku cashareemaba galowga qayshiyo ugaal garabka saaraba gartay noloshayda gartay noloshayda galhaddaan sugayniyo waqtigii wayna soo galayeen galhaddaan sugayniyo waqtigii wayna soo galayeen guushiya barwaaqada gugayga igu simayo kama gaariyoone guushiya barwaaqada guulaygu simayo kama gaariyoonine gortaan sugayna la soo gaadhay maante
dhigo idin garab galle ansoo gaabsho hadalkee gabayada xasuusta leh waxaan uga golleeyahay mamaabay guntee tahay gela wadhab ma lagu dayay gaashaan dhigo idin garab galle gaashaan dhigo idin garab galle ansoo gaabsho hadalkee gabayada xasuusta leh waxaan uga golleeyahay mamaabay guntee tahay gela wadhab ma lagu dayay garhka iyo waxaan labada low meel isugu geeyey sidii aragantaal qaba waxaan ku cashareemaaba garhka iyo waxaan labada low meel isugu geeyey sidii aragantaal qaba waxaan ku cashareemaaba gaajada jirkaygii wuxuu golaangal dhubtaba dhulka waxaan garaaco dabnaha gawda ku hayaaba ama galowga qayshiyo ugaadh garabka saaraaba ama galowga qayshiyo ugaadh garabka saaraaba hadda ayay si toosa waxay uga bilaabatay codbixintu maamulka magaalada Dhagaxbuur waxaanu hadda ku sugannahay waa goob doorashada xaafadda afraad ee maamulka magaalada Dhagaxbuur qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay safaf dhaadheer hadda u taagan yihiin markaasi sidii ay u dhiban lahaayeen codkooda iyagoo markaasi raba in ay doortaan musharaxa ay doonayaan in ay codkooda siiyaan ee matali doona 5 sano ee soo socota ay waa maxamed faarax cabdi marka doorashooyin badan oo horaan soo joogay marka doorashadan aad iyo aad bay si dimuqraadi ah ugu socotaa oo nabadgelyo ah oo waagi hore dhib baa jiri jiray marka wax dhib oo hadda jira ma jiro 5 sano ee soo socota ayaan soo doortay marka aad iyo aad baan saaka ugu faraxsanahay mataqaanaa sida hawshu u socoto haba yaraatee wax dhib oo jira ma jiro kaarku markii hore uu baxayna 26 maalmood buu baxayay awal hore 2 maalmood baan bixin jiray doorasho kasta markay ugu badan tahay ama maalin baan ku bixin jiray marka cid loo diidanaa ma jirin cid walayba kaalay qaada un baa lalahaa mikrofoonkaanu intaa la dhex soconnay 26 beri marka nabadgelyo mataqaanaa wax dhibaato oo jirtaa ma jirto waa sidaa maanta codbixinta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad iyo aad jecelahay dadka inay wax u qabtaan dadka hadda aan codeynay si fiican ayaan una soo dhaweynaynaa waayahay maxaa ku dooratay dadkaad soo dooratay hadda dadkaan soo doortay hadda waa dad aan garanayo oon isku hubo macnahaan ma garanaysa inay dad dalka wax u qabanayaan ayaan garanayaa inay yihiin baan garanayaa saaka aroor baan soo kallahay waxaan u soo kallahay doorashada ciddii macnaha inay ku guulaysata inay dalka wax u qabato shucuurtayda aad baan ugu faraxsanahay doorashadan waayo doorasho xor ah bay ahayd oo qofku ikhtiyaarkiisa uu ku dooranayo cidduu doorto cidduu doono marka anu salaadii dadkii usoo horkalahay baan ka mid ahaa waana codeeyey imika anugu dee kolley dadkii aan anu rabay jeclaan baan u codeeyey waa dadkii idin hogaamin lahaa ee horumaridii gaarsiin lahaa kuwaan islaam baan nabadgelyadana dee waad aragtaana way degan tahay qof bini aadama oo la odhanayo ama kan doora ama kan doorona ma jiro ikhtiyaarkiisa weeyaan qof waliba ku doono ayuu u codaynaya waa doorasho xor ah baan leeyahay anugu iyo xalaal ah bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa weeyaan mawlid ismaaciil maxamuud waxaan ahay iskuduwaha doorashooyinka gobolka jarar guud ahaan haddii aan ka warramo si kooban haddaan uga warramo xaaladda guud iyo guud socodka guud ee doorashooyinka gobolka jarar wuxuu ka kooban yahay 471 xarumood
diyaargarowgooduna shalay oo maskaram 19 ahayd guud ahaan 471 xarumoodba waan xaqiijinay wayna diyaargaroobeen saaka 12 aroornimo waxaa xarumaha codbixinta diyaar ku ahaa shaqaalihii loogu talagalay 12 aroornimona waxaa ku soo xaadiray meesha dadkii codbixinaya oo muddo badan sugayay oo safaf dhaadheer ay ka muuqdaan halkan imka aynu joogno waa qabaleega afraad ee magaalada Dhagaxbuur oo xarunta codbixineed ee xarunta afraad marka waxa sida aad aragtaanba waxa weeyaan dhabarkayga waxa taagan muwaadiniintii hadda ka hor kaarka ka qaatay xaruntan oo u diyaarsan inay codka halkan ka dhibtaan isla markaana ay go'aamiyaan mustaqbalka mas'uuliyiinta matalaadooda siyaasadeed hadduu Ilaahay yiraahdo wakiil ka noqon doonta imse goob doorasho ayaa gobolka ka jirta gaar ahaan maamulka magaalada imse goob doorasho ka jirta imse muwaadiniin baa kaarka codbixinta qaatay oo saaka la raba inay codeeyaan guud ahaan gobolka Jarar waxaa ka jirta 471 xarumood magaalada Dhagaxbuur aanu ku sugannahayna waxaa ka jirta 338 xarumood magaalada Dhagaxbuur waxaa iska diiwaangeliyay dad kor u dhaafayo 51 oo codbixiye gobolka Jarar haddii aan idhaahno guud ahaan gobolka Jarar waxaa iska diiwaangeliyay dad kor u dhaafaya 650 kun oo qof oo u diyaarsan inay codka ka dhiibtaan maanta isla markaana dadkii ay ku diyaarsan yihiin dhammaan xarumihii codbixinta badankoodii